nabadgelyo. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. sharafi korkiina ahaato. waa anigoo ah Sayid Cali Macalin Ibraahim. waa barnaamij ii gaar dumarku waa nolosheena. dumarku waxay yihiin hooyooyinkeen, walaalaheen iyo weliba xaasaskeen. waxaa inagu waajiba haddaynu rag nahay inaynu xushmayno dumarka. dumarka waxa ay leeyihiin mansab u gooni ah uusan gaari karin qof rag ah, sababtoo ah nebi ma jirin ilaa hooyaa dhashay. qof walbo karaamo leh ama heer gaarayna guushiisa waxaa ka dambeeya in sida loo badan yahay waa hooyooyin ama sida dumarka. dumarku waa hadiyad uu ilaahayna siiyey. haddaynu qadarin weynana waa dhibaato meesheeda ku jirta. dumarku ahmiyad bay leeyihiin. dumarku sharaf bay leeyihiin. dumarka sharaf waxaa ugu filan in la dhaho hooyo. dumarku waa kan tan ku haysa xilligaad soo korto ilaa ay xilliga aad ka dhimanayso. waxaad u dhaxaysaa oo keliya gacan dumar. goorta aad dhalato hooyada ayaa ku xanaanaynaysa oo ku korinaysa. xilliga dhexdhexaadka kale aad joogto hooyadaana way ku korinaysaa. walaashaa kaa yar mase kaa weyna way ku caawinaysaa. xilligaad guursatana dumar ayaa wax walbaa ku hagaajinaysa, wax walbaa kuu qabanaysa. xaqeeda waa inaad garataa. marka dumarku waa dhayman. haddaynu inaga ilaalin qof ilaalinaya ma jiro. dumarka ahmiyad iyo sharaf qur-aanka ayay ku leeyihiin, sababtoo ah dartood buu ilaahay usoo dejiyey aayad xijaab. aayaddaasi xijaab baa sharafi ugu filan, sababtoo ah dheemanku qof walibaa ma arko. dheemanku qof walbaa iskama taataabto. dheemanku qof walibaa agtiisa ma tago. dheemankana waa la ilaaliyaa seenbari. dumarkana waxaa ilaaliya walaalahood, waalidkooda iyo inaga oo walaal ahaan ayna la dhashayn oo inama almu'minuuna ikhwa uu ilaahay qur-aanka ku dhahayo. sharafi intaas ayaa ugu filan, sababtoo ah dhammaanteed waa la wada daday ilaa iyo qofka xaqa u leh inuu arka mooye. dumarku waa sharafteen. haddaynu inaga dhowrin qof dhowrayaa ma jiro. adiga ragga ah waxaa kugu waajib ah dumarka inaad dhowrto, sababtoo ah adiga oo dhan liijaanka dumarka ayaad ku jirtaa. dumarku waa hooyada xilliga aad dhalato. waxaadna u dambayn doontaa dumar. bilowgaagii dumar ayaa kusoo waday oo caloosha kugu soo qaaday 9 bilood kusoo waday. waad weynaatay. dumar baad u hoyan doontaa oo aad wax walbaa ka sugi doontaa oo aad ka amar qaadan doontaa. inagu haddaan rag nahay qiimo waynu leenahay, balse haddaynu qiimayno dumarka qiimahaynu wuu ziyaadaya. raginimadu maahan in dumarku sida aad rabto aad ka samaysato, balse raganimada saxdu waa inaad dumarku qiimaysaa, iyaguna ay ku qiimeeyaan. haddaad adigu qiimayso dumarku laa shak iyagu way qalbi jilcan yihiin oo way ku qiimeynayaan, balse haddaad qiimeyn weydo adigu raganimadaada shaki ayaa ku jira. xaqiiqatan dumarku waa sharaftaada. walaashaa ma jeclaan lahayn in la foodeeyo, in la dhibo, in waxun loo geysto. maanta gabar walaashaada haddii wax yar laga soo sheego waad dhibaatoonaysaa, laakiin dumarka kale markaad wax ku samaynayso bay kula jilcan tahay. taasina munaasab maaha. qof walba ha ku ahaato hooyada, walaasha ama xaaskaaga. qadari dumarka. qadarin ayay wax ku leeyihiin. aad bay u qalbi jilcan yihiin. waa qalbigooda waa xabxab, wuu iska jilcan yahay. iyagoo kaa xanaaqsan baad dareemaysaa haddana inay kuu naxayaan oo kuu dhitunayaan. hooyadaa weligaa ma aragtay iyadoo kaa xanaaqaysa. waan kaa xanaaqa way ku leedahay, balse adigoo baahan xataa kuma fiirsan karto. inahaagoo xanuunsan mase xanuun kama dareemi karto. sidaas ayay dumarku u jilcan yihiin. haddaynu inaga qadarino qof qadarinaya ma jiro. dumarku iyagana hal shay baa waajib ku ah oo waajib ku ah in ay sameeyaan. iyagu waxaa waajib ku ah oo keliya inay iyagu isxifdiyaan. ninacana markuu feedan yahay iyo ninaca feedan iyo ninacaan feednayn kala qiimo badan. adigu luul baa tahay, qof ma tahay ayaa ku heli karaa. badeeco meel iska taataalaahi ma tihid. badeecada tan qiimaha badan meel gaar ah baa lagu xareeyaa. tan iska caadiga ahna meel gooni baa la dhiga. adigu badeeco qaali baa tahay. haddaadan adigu isdhoorinna dhibaataad ku jirtaa. hadda raggeena keena xun xataa ma jeclo dumar qaawan
dumar wax laga sheegayo hadda adigay waajib kugu tahay. marka hal shayaana waajib kugu ah, adiga uun jirkaaga xifdi, adiga uun isxifdi. qofkii wanaagsanaada qof wanaagsan uun buu helayaa, qofkii xumaadana qof xun uun buu helayaa. qof walba miisaanka uu joogo qofkiis ayuu helayaa. adigani dumarka ah waxaa waajib kugu ah oo keliya inaad nafsadaada xifdiso. nafsadaada xifdi, adigu dumar baad tahay, qiimaad leedahay. dadka qiimahaaga garanaya aad bay u yaryihiin xilligani lagu jiro. qiimahaaga adigu garo, isxifdi. qof xifdisan oo dhowrsoon buu ilaahay kula soo xiriirin doonaa. ha isqaawinin, gaal ha isku matelin. adigu dumar baa tahay, ilaahay dartaa ayuu aayad xijaab usoo dejiyey. malagii jibriil ahaa loogu soo dhiibay, nebi muxamed uu akhriyey, saxaabadii ay akhrin jireen. midkeen noogu fiican ee qur-aanka kasay uu akhrinayaa, adigani fiican aad akhrinaysaa. waa qur-aan dhedheel maahan, waa kalaamkii ilaahay. ilaahay baa ku sharfay, dhayman baa tahay adigu. qof walbaa kuma taaban karo, qof walbaa kuma arki karo. adigu ha iska dhigin sida tif meelaha oola kale, ha iska dhigin. tifka xataa qiimuu leeyahay, laakiin adigu haddaad isqaabiso qiimo la-aan baad noqon doontaa. adigu qiimo la-aan ha iska dhigin. insha araxmaan waan rajaynayaa qiimahaaga in la garan doono haddaad adigu qiimahaaga garato. allaha ina wada xifdiyo. dumarkeenii baa tihiin, wallaahi sharafteenaad tihiin. hooyooyinkeen, walaalaheen iyo dhammaan waxaynu la jecelnahay kheyrka. ilaahay ha idin xifdiyo, innagana qiimihiina kuwa garanaya allah idinka dhigo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.